ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. فيديوغان waxaynu kaga hadli doonaa calaamadaha lagu joogsado Qur'aanka Kariimka ah mid walba qaabka loogu joogsanayo iyo macnaha ay xambaarsan tahay ee meesha loo dhigay. haddaba calaamadahani ugu horeyn waxaa dejiyay culimada muslimiinta ah. calaamadahan waxay u dejiyeen si ay u kaalmayso dadka caamada muslimiinta ah ama dadka aan garanayn luqadda carabiga inay quraanka ku akhriyaan akhris sax ah kaasi oo u sheegaya ama ka kaalmaynaya halka ay ku istaagayaan iyo halka ay ka bilaabayaan. calaamada ugu horeysa haddii aynu soo qaadano waa miimta yar ee gaaban. calaamadaasina waa calaamatu waqfi laazim. waxay sheegaysaa calaamadani in halkan lagu istaagaa inay laazim tahay. laazimkaasina ma aha mid qofku haddii uu ka tago uu ku dambaabayo, laakiin waa mid istilaaxi ah oo ay culimadu isla garteen. bal haddaba aynu soo qaadano aayad ay ku jirto miimta yari. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هل كايرة أي كشر تاميمتي إنما يستجيب الذين يسمعون. يسمعون وحل قولي هل كاكو استاج لازم إنما يستجيب أي إله إلا حق وحا أجيبون الذين كوا يسمعون حق قاتا حق دقيستا والموتى كوا دمتي وقال لي قلوب تود لمتينا يبعثهم الله ألا واسوساريا ثم دبدتنا إليه يرجعون حقي سأيا لوعلنيا. مركا استجابة داسي وحا حق قاتاون الذين يسمعون مركا وين تكو استاكتو هدي isku xidho istijaabadaasi waxaa la moodayaa inay ku dhacayso kuwa maqla iyo kuwa dhintayba, waxaana soo baxaya macno qalad ah oo ah waxaa xaqa ajiiba uun kuwa xaqa dhagaysta iyo kuwa dhintayba, waxaana macno qalad ah. marka waxaa lagu leeyahay halkaasi ku istaag. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. علامة اللبات وعلامة اللا. علامة سنا waxay noo sheegaysaa calaamatu waqfi الممنوع in halkan lagu istaagaa waa mamnuuc oo ma wanaagsana bay ku leedahay, waana qalad. tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. marka halkaas waxa lagu leeyahay laa baa ku jirta, waa ku istaagina isku xidh. والذي جاء بالصدق وصدق به ku istaagin baa lagu leeyahay isku xidh. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي كي جاء ليم بالصدق هنت ليمي أي وصدق الرمي به كهنت ليمي رميي وركي مركا مرة ما يسترنا. أولئك كواسي هم المتقون أيقون باءه kuwa alle ka cabsada. marka walladii waxa weeyaan mubtada, khabarkeeduna wuxuu noqonayaa ulaa'ika. mana habboona in mubtadaha iyo khabarka la kala jaro ee waxa wanaagsan inay isku xidhnaadaan. marka macnihii nuxurkiisii ayaa kala go'aya. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. sidaasi ayay sax ku noqonaysaa. calaamada saddexaadi waa jiim. calaamadana waxay kuu sheegaysaa jawaazu lwaqfi wa jawaazu lwasli. inaad ku joojisaana way kuu bannaan tahay, inaad xidhiidhisana way kuu bannaan tahay. marka waa kontonkiiba konton, kontonkiiba konton, waa kala badh. inaad joojisana waa kuu bannaan tahay, inaad xidhiidhisana way kuu bannaan tahay. tusaale ahaan
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. وكتشوك سليمك وأنا اسكحري كرا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويبنانتي إناد كتشوك ستو iyo inaad isku xidho labaduba way banaayeen. Calaamada afraadi waa qila oo loo soo gaabiyay alwaqfu awla in lagu istaago ayaa horeysa. Alwaqfu qaafka laga soo qaatay awla laamkii alifka laga soo qaatay marka waxa loo soo gaabiyay qila. calaamadani waxa weeyaan waxa horeeya in lagu joogsado ayaa ka horeeya in la xiriiriyo labadubana waa ay banaan yihiin لكن وحا حوق بدن إناد كجوكستو تصالحا قولك إلهي سبحانه وتعالى فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. تاسه الرئيساء أو ليسا وانا يكون بنانتا هنا الحرير سوى تراهدو فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن قاتلوكم هديد كل دجالمان بيت الحرام أكتيس هديد كل دجالمان فقتلوهم لا يبا إلهي سبحانه وتعالى كذلك جزاء الكافرين. سداسي أياه أبا المركة قالوا وسداسي مركة فإن قاتلوكم فقتلوهم حكم كيوه لاية علدنا ومحي كذلك سداسي أياه جزاء الكافرين قالوا abaalmarkoodu waa sidaasi. marka in la kala gooyo ayaa ka horeysa ama ka awleysan inaad xiriiriso ay calaamadani ku sheegay. calaamada shanaadi waa sila oo loo soo gaabiyay alwaslu awla in lagu istaaga way banaan tahay laakiin waxa ka horeeya oo ka awleysan in la xiriiriyo sababtuna waxa weeyaan macnaha oo xoog isugu xiran awgeed ayaa waxa horeeya in la xiriiriyo ayaa ka horeeya in la kala gooyo labadubana waa ay banaan yihiin. tusaale haddii aynu soo qaadano الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. halka waxa saaran sila ba saaran waxa markaa lagu leeyahay inaad halka ku istaagto waxa ka awleysan inaad xiriiriso sababtuna waxa weeyaan macnaha ayaa xiriirsan. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. علامة ودن بيساء وعلامة التعانق وصدح ذا دبعود يصدح ذا دبعود يرير اي اسكو دو وحانا لقولي هي هدي اد متكود كو يستاكتو ككلها كو يستاقين يعني هدي اد صدح ذا دبعود هورا كو يستاكتو saddexda dhibcood ee dambe waad dhaafaysaa oo inta kale aad ku sii xiriirinaysaa ama saddexda dhibcood ee dambe ayaad ku istaagaysaa oo saddexda hore ayaad dhaafaysaa. waxa weeyaan calaamatu tacaanuq oo mid haddaad ku istaagto ka kale ku istaagi maysid. tusaale haddii aynu soo qaadano ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. waxaa kaloon odhan karaa ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. laakiin waxaa qalada inaad labadaba ku istaagto oo aad tidhaahdo ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين macnihii oo dhan baa kala go'aya.
إذا على مضاد أي نصوص شيء إلا جو استاجو واجتهاد أي لي مادين علماده waxa ay ku tusaalayaan sida ishaarooyinka wadooyinka ay gawaadhida haga qofku hadduu ishaarooyinkaas waxay u sheegayaan uu raaco si nabad qabta ayuu ku tagaa halkii uu doonayay sidaas oo kale qofku haddii uu calaamadahan ilaaliyo marka uu quraanka akhrinayo waxa u sugmaya oo u saxmaya macnihii quraanka haddaba waa maxay xukunka inuu qofku laasimo calaamadahani in qofku laasimo oo uu joogteeyo waajib maaha inuu khilaafo oo uu ka tagana xaraam maaha ilaa inuu qofku u bareero oo uu caadaysto inuu ku istaago meel macnihii fasaadinaya oo soo saaraya macne xun oo qalad ah oo aanu qofka muslimka ah ama qofka mu'minka ahi aanu ugu istaagin isagoo sahwi ku jira ama ilowsan mooyaane markaasi ayuu waqfigu noqonayaa xaaraan laakiin inta kale waa ay u bannaan tahay qofku wuxuu waqfigu xaaraan ka noqonayaa inuu qofku caadaysto inuu ku istaago meel macnihii fasaadinaysa oo uu soo baxayo macne xun oo aan macnihii quraanka ahayn uu ka soo baxayo qofkaasi ayaa ku dhacaya waqfigii xaaraanta ahaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.